waxay ahayd xilli adag oo dalku galay xaalad adag kolkii ay duntay dawladdii Soomaaliya sanadkii 1991 bilowgiiba ummaddu waxa ay dareentay halista dawlad la'aanta waxaana la wajahay colaado sokeeye qalalaasihii caasimadda ka qarxay ayaa ku faafay gobollada oo dhan kadibna waxa yimi barakac gudaha ah iyo qaxootiga bannaanka oo haqabluhu iska daba tegey xaaladii waddanka oo markaa xaalad dagaal sokeeye ku socotay oo wax kastaaba ay burbureen ay tacliintu ka mid ahayd xaaladda dhaqaale oo aad u adkayd waqtiga xaaladda waxbarasho oo aad u adkayd oo ay burburtay tacliintii oo dhan ay burburtay jaamacad ilaa dugsi loogu hooseeya dadkii oo qax ku jiray kolkii sanado sidaasi la ahaa oo bulshada u nuglaatay daqarada burbur ku keenay lagana rajo dhigay dawlad Soomaaliyeed oo dhaqso u dhisanta ayay timi taladii lagu dhisayay dawladda Puntland bilowgii dhismaha Puntland waxa laga dhaxlay xasilooni deegaan iyo soo kabasho Soomaalidii kalena waa ku soo hiratay kolkaasi kadib ayaa lagu baraarugay in dib loo furo dugsiyadii waxbarasho waxa marka la aasaasay iskuuladii markii la aasaasay ardayda secondary ka soo baxday jaamacad baa loo baahday jaamacad la'aantu waxay ahayd nabar toobayay intii muhiimadeeda fahamsanayd waxay ahayd boog calooliyo galisa kolka uu xasuusto qofkii ogaa kuwii bilaashka ahaa ee xilliga sanado uun ka hor lagu naaloonay waxa garad kastana wadnaha ayuu farta kaga hayay dayaca bulsho ee laga dhaxli karo jaamacad la'aanta ahayd fikrad aan waqtigaas cid walba aan ka fikiri karayn oo runtii maadaama wadankii dawladda dhexe meesha ka baxday shacabku wali aan gaarin heer ay ka fikiraan in high education asaasan duruufaha jira awgooda adka waxay ahayd xaqiiqadii xilliga jirtay laakiin xaalad kasta oo adag waxa ummadda kala dabaasha mufakkiriin muujiya dadaal dhabar adeeg iyo nafurnimo talaabadan la maatayna halkan ayay ka soo bilaabatay 1998 khiyaar hadda badankooda ay dhinteenba waxaan isugu nimi Maka magaalada Barakan xaafadda Aziziya gurigan ka deganaa Aziziya waxa soo yimid Dr. Abdulqaadir Maxamed Abdullah الله يرحم وهذا دنتي إيوه دكتور أحمد حاجي عبد الرحمن الله يرحم سوون دنتي إيوه شيخ يوسف عبد العزيز محمد وهذا الشوقة ولما هو رئيس ولي بدنا دور هذا عن حافظ كل شيء ترني وحنا كهل إني سيدة جامعة الله غفرة بوساسه والمركز لقى جامعة الله غفرة ظروفii jiray iyo xaaladihii xilligaas lagu sugnaa darteed dad badan waxa ay yaqiinsadeen in aysan hirgeli karin aragtidaas ummaddu u oomanayd taasi waa caqabadaha bilow walba raggii fikirka keenana waa ka gudbeen iyadoo ay gudaha iyo dibaddaba kaga biireen hal door kale oo la gaardaadiyay aragtidii tolmoonay isla markii waxaan ugu soo biiray Dr. Cabdiraxmaan Ceel Jaalle oo ku deganaayo door weyn ku lahaa xaqiiqatan jaamacadda waxa ka mid ahaa Sheekh Cabdiwaahid Xaashi waxa ka mid ahaa Muhandis Maxamed Xaaji Xoosh oo Riyaad deganaa raggaas waxay ahaayeen fikrada takwiinka marka joogto Maka inta badan u imaan jiray wax la soo dhiraandhiriyo oo maalinba tallaabo la qaado waxa la soo gaaray 23 Oktoobar sanadkii 1999 xilliga oo albaabada loo furay jaamacaddii ugu horeysay ee laga hirgeliyay deegaamada Puntland waa bariga Afrika oo markaasi loo bixiyay Bandar Qaasim waxa lagu bilaabay guri yar oo aad u kooban oo 3 qol 4 qol aan ka badnayn mise 2 qol aad u yar buu ahaa lagu bilaabay oo magaalada Boosaaso ayaa lagu bilaabay arday koobanna waa lagu bilaabay sanadkii koowaad asaaska ayaa laga dhisay ardayda oo dhammaan 95 loona qaatay kulliyadaha shareecada iyo maamulka iyo maareynta muddo kooban kadib durusta jaamacadda ayaa loogu bilaabay dhismaha dugsiga Imaam Shaafici Dr. Maxamed Faahiye oo kamid ahaa ardaydii ugu horeysay ee xaadirtay bilowgii jaamacaddan ayaa xasuusta maalmaha dahabiga ah 25 sano ka hor jaamacadda bariga Afrika semesterkii koowaad waxaan ku bilownay fasalkan oo hadda ka tirsan dugsiga sare Imaam Shaafici haddaan marka gudaha fiirino waxaad arki kartaan kuraasta taala laftigeedu taqriiban noocan kama duwaneyn saanaan u fariisan jirnay casharadana halkaasaanu ku qaadan jirnay sawiradaas furitaanka jaamacadda wax yar kadib ayaa loo guntaday sidii jaamacaddu u heli lahayd dhismo ay leedahay oo rasmi ah kaas oo sanadkii 2000 laga bilaabay bannaanka bari ee magaalada Boosaaso iyadoo sanadkii 2001 si toos ah duruusta iyo xafiisyadaba loogu raray halkaas zero baa laga bilaabay dhulka in la gado in la wareejiyo in la dhiso in macallimiinta la helo waan garanayaa macallimiintii koowaad oo ajnabi yihiin waxay ahaayeen wiil iyo gabadh isqabo Hindi oo yaryar oo Jos baa la oran jiray ninka gabadhana Kalbita ama la oran jiray waa barbilow xusuus mudan iyo hayaan wax ku oola oo maalinba tallaabo qaadayay bulshaduna waxa ay garowsan tahay in jaamacadda bariga Afrika tahay iftiin laga aflaxay iyo bar door weyn ku leh dib u dhiska iyo soo kabashada dalkeena
koritaan joogto ayay jaamacaddu ka samaynaysay dhan walba waxaa sanad walba siyaadayay ardayda jaamacadda dhiganaysa iyo kuwa ka baxaya waxaa joogto loo soo kordhinayay kulliyadaha cusub iyada oo dhanka kalena ay badanayeen dhismayaasha jaamacaddu kolka aan tuuro goyno oo aan ku dulgeyno guulaha dhaxalgalka ee jaamacaddu ay gaadhay muddadaas 25 sanaana waxaa ka mid ah koritaanka wax ku oolka ee laga sameeyey dhan walba dhanka ballaadhinta jaamacadda xaruntii boosaaso ee laga bilaabay waatan sidaa u ballaaratay sidoo kale waxaa la hirgeliyey ilaa 7 farac oo ku yaala magaalooyinka kale ah gaalkacyo garowe qardho buuhoodle galdogob ceergaabo iyo burtile dhismayaasha kala duwan ee jaamacadda bariga afrika ayaa iyaguna dhan 17 dhisme oo ku kala yaala magaalooyinka dhammaantoodba lagu shaqeeyo muddada jaamacaddu koritaanka waday waxaa ka qalin bogtay arday kor u dhaafaysa 12,120 arday oo ka baxay kulliyadaha kala gedisan ee jaamacadda kuwaas oo ay ka mid yihiin in badan oo ka mid ah dadka foolaadka u ah labeentana u ah bulshada dadkii ka qalin jebiyey waa dadka Puntland iyo Soomaaliya oo dhan maanta kawaadirta ka shaqeysa aad bay ugu badan yihiin oo qayb kasta oo mas'uuliyaadka kale leh ah waxbarasho tahay iyo hadday maamul tahayba iyo hadday caafimaad tahay hadday engineering tahay qaybaheeda kala duwan dadka ka baxay haddaan xanaano xoolo tahay hadday shareecad tahay dadkaasoo dhani nolosha maanta aqooneed ee waddanka Soomaaliya qayb weyn bay ka yihiin horumarka dhanka tacliinta ayaa sidoo kale guulo laga gaaray waxaana joogto u siyaadayay kulliyadaha jaamacadda bariga afrika bixiso iyada oo sanadkii 2017 jaamacaddu wax ka bedel guud ku samaysay qaab dhismeedka jaamacadda loona dejiyey kulliyadaha iyo waaxahooda xilligan tirada kulliyadaha heerka koowaad undergraduate ee jaamacaddu bixiso waxa ay gaarayaan 10 kulliyadood kulliyadda daraasaadka sare iyo cilmi baarista kulliyadda sare ee daraasaadka islaamka kulliyadda ganacsiga iyo maaraynta kulliyadda cilmiga bulshada iyo dhaqaalaha kulliyadda sayniska iyo waxbarashada kulliyadda caafimaadka iyo culuumta caafimaadka kulliyadda muhandasada kulliyadda sayniska iyo tiknoolajiyadda warfaafinta kulliyadda beeraha iyo culuumta xoolaha kulliyadda culuumta badda deegaanka iyo dhulka intaba waxa ay ka mid yihiin kuwa laga dhigo jaamacadda bariga afrika waxaa intaasi dheer tirada kulliyadaha heerka labaad oo 12 program gaaraya waxaa muuqda jidka 25 sano la soo hayay inuu dhalay horumarkaas ballaadhan ee xilligan dhan walba jaamacadda ka muuqda heerka jaamacaddani ka tahay dhismaha bulshada waxaa tusaale u ah soo saarista jiilal isdaba joog ah sida cabdulaahi oo ahaa ardaydii lagu bilaabay awlaaddiisuna muddo kadib soo qaadayso waddadii waalidku mahajay hadda aniga ciyaaladaydii baa qaar ka baxeen qaarna hadda dhigtaan nin ka baxay tusaalahaan hadda golis buu u shaqeeyaa kuwo kalena waa ay dhigtaan qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa ku dhan inta jaamacadda ka loox jiidatay ee 12 kun kor u dhaafaya waxaa ka mid ah kuwa ka soo baxay siyaasiyiin culimo ganacsato iyo isimada dhaqanka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxaana ka mid ahay ardaydii ka qalin jabisay masterta jaamacadda bariga afrika oo ah hooyadii tacliinta Puntland dadaalku waa mid socda waxaana xilligan wadada soo haya kumanaan kale oo kala heer ah kuwaasi oo wax ka barta laamaha kala gedisan ee ku yaala magaalooyinka jaamacaddu xarumaha ay ku leedahay iyadoo barahaasi ay macallimiin ka yihiin ku dhawaad 500 oo bare macallimiin waxa haysanaa alxamdulillah tayo leh oo PhD iyo master u badan sida masterka ayaa aad u badan PhD-na number aad u wanaagsan ayaanu haysanaa jaamacadda waxa shardi ah qofka wax ka dhigaya inuu at least master holder uu yahay ayaa shardi ah si loo ilaaliyo tayada waxbarasho ee ardayga jaamacaddu waxay xiriir qoto dheer ay la leedahay in ka badan 17 urur iyo 50 goobo waxbarasho oo isugu jira kuwa caalami ah iyo kuwa maxalli ahba xiriiradaasi waxay ardayda bariga afrika u yihiin fursad dahabi ah oo ay aqoontooda adduunka ku kororsan karaan jaamacaddu iyadoo la jaanqaadaysa tiknoolajiyadda adduunka iyada qudheedu geediga ah ayay hirgelisay inay martigeliso jaamacado bixinaya waxbarashada sare iyadoo aan ardaydu gurigooda dhaafaynin wasiirka warfaafinta Puntland ayaa ka mid ah inta fursadaha u heshay inay ka faa'iideysato waxbarashada sare ee deegaankiisa loogu keenay course project management wuxuu ahaa course aan muddo badan xiiseynayay waxa course aad iyo aad u qiimo badan anigoo shaqadayda haysta oo muxuu ahaayay shaqo badan oo mashquul haysta waxa ay suurto gashay inaan online ku qaato course-kan hadda waxaan isu diyaarinayaa imtixaankaygii insha Allah marka imtixaankan kan ka gudbo course-kan dhamaadana research-kayga isu diyaarin doonaa insha Allah marka laga yimaado tacliinta ay jaamacaddu sida tooska u bixinaysay waxa kale oo joogto uga qayb qaadanaysay arrimaha bulshada ee muhiimka ah tusaale miraha la mahadshay ee bariga afrika waxa ka mid ah hospitaalkan manhal oo ay hirgelisay jaamacaddu kaas oo laga fuliyo qalliimo iyo howlgallo kale oo caafimaad kuwaas oo khayri ah sidoo kale jaamacaddu waxa ay door lixaad la ka qaadatay arrimaha kale ee bulshada tan muhiimka u ah qabashada arrimahaasi muhiimka ah waxa ka mid ah tartanka quraanka bandhigga dhaqanka iyo taageerada arrimaha bulshada oo caafimaadkuba ka mid yahay muddada hayaan ku socday waxa hoggaanka jaamacadda isaga dambeeyay 5 gudoomiye
oo uu ugu horreeyey guddoomiyihii jaamacadda bariga afrika brofesor cabdiqaadir maxamed cabdalla oo xilka hayey intii u dhaxaysay sannadii 1999 ilaa 2008 waxaa ku xigay brofesor maxamed cabdi aadan oo isaguna xilka hayey 2008 ilaa 2012 waxaa hogaaminayay jaamacadda brofesor cabdirasaaq hiirad maxamed 2014-2020 brofesor aadan shukdoon cali ayaa ahaa gudoomiyaha kahor inta uusan kala wareegin gudoomiyaha xilligan jooga doctor cabdirasaaq maxamuud takar oo xilka qabtay 2020 jaamacadda bariga afrika oo maanta u xafladeynaysa 25 jirkeeda waxay haysaa waddo waxayna leedahay aragti ah in ay noqoto xarun hormuud u ah heerka sare ee waxbarashada Soomaalida sidoo kale waxa ay leedahay himilooyin cadcad iyo qorshe istiraatiijiyadeed oo kala horeeya